Jean-Claude Roman waa nin asal ahaan ka soo jeeda dalka Faransiiska waxaanu dhashay sanadkii 1954. Mr. Roman waxa uu ahaa nin dabeecad fiican, deganaan badan, waxbarashadana aad ugu fiican, balse waxa uu ahaa beenaale ama beenlow. Sanad kadib 1971 ayuu dhamaystirtay waxbarashada dugsiga sare. Intaa kadib wuxuu waxbarashada ka bilaabay jaamacadda, gaar ahaan kulliyadda caafimaadka. sanadkii koobaad imtixaanka jaamacadda uu ku guuleystay, balse nasiib darro sanadkii labaad muu gudbin. Roman inuu imtixaankii dhacay cid umuu sheegin, isla markaana cid ka shakidayba may jirin. Haddaba halkii laga rabay inuu dib ugu noqdo fasalkii labaad ee uu imtixaanka kaga hadhay, Roman waxa uu iska fadhiistay fasalka saddexaad. Laakiin xilliga imtixaanaadka muu iman jirin, waayo wuxuu ka baqanayay in la ogaado foomkiisa dib loo eego kadibna la celiyo. waxaanu sidaa ku dhamaystay 12 sano oo jaamacad been ah. 12 sano ayuu jirayay inuu jaamacad dhigto. dabcan jaamacad uu dhigan jiray, laakiin imtixaanaadka kamuu soo qabangeeli jirin, wax shahaado aan hamu helin. hadda beentii jaamacadda iyo khiyaaligeedii uu soo dhammaaday, waxaa hadhay beentii shaqada. maadaama uu Roma soo bartay caafimaadka, shahaadana aanu haysan, isla markaana wax shaqo aan la siin karin, waxa uu ku fikiray inuu alifo been kale. waxa uu sheegtay inuu la shaqeeyo ururka caafimaadka adduunka ee xarunta Geneva. isaguna waxa uu degan yahay tuulo ku taala dalka Faransa. xaruntuna waxay ku taalaa dalka Switzerland, laakiin gurigiisa waxa u jirtaa 5 kiiloomitir oo kaliya. subaxii ayuu soo toosayaa, uu quraacanayaa, uu labisanayaa, wuxuu iska dhigayaa sidii qof u socda shaqo oo kale. balse suuqa ayuu iskaga soo wareegi jiray, wuxuu tegi jiray hoteelada iyo makhaayadaha, mararka qaarna gaadhigiisa ayuu iska dhex seexan jiray. Roman wuxuu u diidi jiray xaaskiisa inay soo wacdo xarunta shaqada, xitaa haddii ay u baahan tahay wax muhiim ah. wuxuu ka dhaadhiciyey inay mamnuuc tahay in la ogaado shaqaalaha xarunta caafimaadka, iyaduna way ku qanacday hadalkiisa. 10 sano ayaanu beentaa ku waday. 1988 Roman seedigii waxa ku dhacay kansar. markaa Roman waxa uu sheegay in dawada laga helayo xarunta caafimaadka adduunka, balse laga iibin karo dad khaas ah. Roman seedigii wuxuu u dhiibay lacag dhan 100,000 oo franc si uu u soo iibiyo dawada kansarka. lacagtii 100,000 ahayd jeebka ayuu gashaday. waxaanu farmasiiga ugu soo iibiyey dawooyin xanuunka ka dejinaya, qiimahooduna ay ka yar yihiin $5. muddo kadib Roman xaaskiisa ayaa ka shakiday. waxay wacday xarunta caafimaadka adduunka ee Geneva, waxaana loo sheegay in aanu qof magaca leh aanu ka shaqayn xarunta caafimaadka. Roman wuxuu dareemay in beentiisa la ogaan doono, manuu rabin inay sidaasi dhacdo. muu rabin faamilkiisa inay ogaadaan sirtiisa iyo inaanu shaqo haysan. wuxuu ku fakiray inaan beentiisa la ogaan. wuxuu soo iibsaday qori, rasaas iyo zabrayzer ama qalabka yare qoriga afka laga xidho si aanu codka u samayn. ugu horreyn waxa uu tegay gurigooda, waxaanu halkaa ku soo dilay aabbihii iyo hooyadii. kadib wuxuu u dhaqaaqay dhinaca gurigiisa, waxaanu halkaa ku soo dilay labadiisa carruur iyo xaaskiisa. wax yar ka bacdina waxa uu gurigii qabadsiiyey dab. markii Roman la qabtay waxa uu qirtay dembigiisa. 3 sano ka bacdina waxa lagu xukumay xabsi daa'im. muddo markii uu ku jiray xabsiga, waxaa lagu sameeyey baaritaan, waxaana laga helay xanuunka loo yaqaano Narcissistic Personality Disorder, waana laga sii daayay xabsigii.